kubadda cagta ee dekedaha ayaa tababarkoodii ugu dambeeyay ee saaka sameeyay iyagoona markaasi qayb ka ahaa isku diyaarinta tartanka ee lagu magacaabo CAF Champions League oo ay markaasi ka qayb gali doonto. Kooxda dekeda ayaa dhowaan waxa ay waday tababar ay isku diyaarinayso safkeeda xilli ciyaareedkan oo ay ka qayb gali doono tartanka ee CAF Championship. Saakay ayayna kulankii ugu dambeeyay tababar ku sameysay iyadoona ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee markaasi Juba FC. Kooxdan ayaa maalinta berito hadduu Alle idmo waxa ay markaasi u safri doontaa dalka Tunisia halkaas oo ay lugta labaad ay markaasi ku ciyaari doonto tartanka CAF Champions League iyo sidoo kale Confederation Cup oo ay markaasi ciyaari doonto. Kooxdan waxa ayna markaasi kusii wajahan tahay dalka Tunisia maalinta berito ah ayay markaasi ka ambabaxaysaa garoonka weyn ee Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Kooxdan dekedaha tartanka ay markaasi ciyaartay CAF Championship kulamadii ciyaartay waa ay guuleysatay, sidaasina waxay u soo baxday wareegga xiga ee markaasi tartankan lagu magacaabo koobka ee CAF Confederation League iyo sidoo kale Confederation Cup ay markaasi ciyaari doonto xilli ciyaareedkan. Waxaana laga sugayaa kooxda kubadda cagta ee dekedaha in maalinta berito ay ka ambabaxdo magaalada Muqdisho dhowaan ayayna ciyaari doontaa. Marka ay dalka markaa Tunisia tagto waxay ku sameyn doontaa diyaar garowgii ugu dambeeyay si kulan ciyaareedkaasi ay qayb ugu noqdaan. Waxayna la filayaa kooxdan dekedaha sanadkan in mar kale guul ay ka keento tartankan.